marka hore waxay ka dhigan tahay ra'iisul wasaare wuxuu magacaaban yahay 6 maalmood isniinta ayaa la magacaabay sabtidiina wuxuu yimid dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya muhiimadda ay leedahay waxaad ku qiyaasan kartaa ra'iisul wasaaruhu waxaan oran karnaa xilkii lama wada wareegin oo toddobaad xilka ra'iisul wasaare Itoobiya lagu lama wareegin isagoo xilkii la wada wareegin inuu go'aansado inuu yimaado magaalada Jigjiga inuu soo booqdo deegaanka Soomaalida inuu la shiro xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida muhiimad aad u ballaaran bay leedahay muhiimad bay u leedahay shacabka Soomaaliyeed muhiimad gaarana u leedahay geeska Afrika muhiimada gaarka geeska Afrika u leedahay waa maxay waxay u leedahay waxa weeyaan isbedel baa Itoobiya ka dhacay nabadgelyo ah oo ra'iisul wasaaruhu hore iscasilay ra'iisul wasaarihii dhammaan xilka la wareegay dadka Soomaaliduna waxa weeyaan dad ay ku teedsan yihiin dad Soomaaliyeed oo xal leh oo dhibaatooyinkii iyo qulqulutooyinkii dalka ka jirayna ay saameyn ku lahaayeen xagga xuduudaha deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Oromada isaguna qoomiyad ahaan wuxuu ka soo jeedaa ra'iisul wasaaraha cusub qoomiyadda Oromada haddaba muhiimada ay geeska iyo deegaanka u leedahay iyo wadanka guud ahaan waxa weeyaan waxay isku soo jiidaysaa labada deegaan waxaa la socda isla sidoo kale madaxweynaha waxaa la socda micnaha ra'iisul wasaare yani waqti ballaaran baa madaxweynaha ku xigeen la socda laakiin bal waxaad iga warantaa maxaa tallaabo ku xigta arrintan soo boqoshada maanta ku yimid waxa tallaabo xigta maanta shacabka iyo hadda la shiray kaabineyga uu madaxweynuhu hogaamiyay mudane Cabdi Maxamed Cumarna uu la shiri doonaa ra'iisul wasaaraha shirka labada shir markaan dhameysano waxa xigaya nabadeynta labada deegaan ee dadka Soomaalida iyo Oromada tirtan baa dib isugu soo noqon doona miya shirar waaweyn oo shacab ayaa dib isugu soo noqonaya labada qowmiyadood ma ku shacab mise waa ku dawladeed ka dawladda already ka dawladda hadda waa naga galay waana ra'iisul wasaaraha yagii deegaanka uu madaxweynihii joogana uu yimid labada mas'uulna way wada shireen waxa laga wada hadlay sidii loo sii ambaqaadi lahaa nabadeynta labada deegaan iyo sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarka wadanka guud ahaan odayaashu waxay carabka aad ugu qaleen inaynan hadda kadib sidii u adkeysan doonin inay banaanka ka fadhiyaan hogaaminta wadanka Itoobiya oo xuquuq ay ku leeyihiin ay kaga maqan tahay arrinta bal ka waranka xukuumad ahaan arrintaasi waa mid aan aaminsanahay xukuumad ahaan iyo shacab ahaan iyo xisbi ahaanba waxaa banaanka meelaha lagu go'aaminayo wadankan mustaqbalkiisa deegaanka iyo xisbigaba bahwadaag ayaan wali ku nahay laakiin hadda waxay dadku ka hadlayaan laga wada hadlay waxa weeyaan sidii xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadda madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar hogaaminayo ay go'aanka kama dambaysa wadanka ay wax ugu yeelan lahaayeen way dadku waxay ka hadlayaan marka idinku wali ma ka hadasheen odayaashu way ka hadleen waa sidii way ka hadleen laakiin ka xukuumad ahaan ma kala hadasheen mise wad ka hadli doontaan waan ka hadalnay shirkii xisbiga Baardheer ra'iisul wasaaraha lagu dooranayay madaxweyne wuxuu kaga hadlay inay hadda wixii ka dambeeya ayna noqoneen dhageystayaal inaan banaanka ka fadhiyeen go'aanka wadankan yaa ra'iisul wasaare noqonaya qaabka loo dooranayo inay hadda wixii ka dambeeya ay banaanka ka joogeen xisbigu balka war xukuumaddiisa maxaa laga filayaa hadda in wax kaga dar doono muhiim wasaarada muhiima xukuumaddiisa ra'iisul wasaare cusub waxay ballan qaaday in la shaqeyn doono xukuumadda uu madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar hogaaminayo iyo shacabka hogaaminayaba waxaan filaynaa golaha wasiirada in wax fiican oo intii hore ka badan inaga siin doonaan horumarka wax ka ballaaran sidii hore uu nala qaban doono nimankani waxay muujiyeen niyad sami ay nagula shaqeynayaan xukuumadda uu madaxweyne hogaaminayo ay kula shaqeynayaan oo weligeed hore loo xaqiijinin 6 maalmood ayay ku soo istaageen magaalada Jigjiga waana wax aad loogu farxay su'aashan ugu dambeysay madaxweyne xisbigan ama baartigan dowladda deegaanka Soomaalida ka taliya wuxuu isu dhawaayeen si dadku sheegaan xisbiga Tigreega marka ma u muuqataa in hadda maadaama xukunka Itoobiya ay qabteen xisbiga IBD Oromia ma laga yaabaa inaad xagga u jeexsataan horta mid baa in loo ogaado wanaagsan waxa weeyaan hal xisbi baa kursiga la kala wareegay laba xisbi horta lama kala wareegay